أهل الجنة جرد مرد كحلا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم بالنبي يقول أهل الجنة جرد مرد أهل الجنة قد يلن مايان تمت دغرنا يلن مايان حقا ولا ملكلا تمت بدنا يلن مايان قدنا يلن مايان بالنبي يقول كحلا عنده غنا واحد مودا عنده كحولين لو مرياد مودا بل ويبكو سميسان تهيبا لا يفنى شبابهم dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 3 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 3 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa thiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaaba helaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi فتهب عليهم ريح من قبل من الشمال ضبيل أي حقا كذا إيمان دون تدين عبدح ضبيل شاسا وجهوكي كل فنيسا سورة دودي بيبدل يساب ونبي يقولي كلر كدرك نو يبدل يسا أيكو كلر كي حافظك كجت تجين دركوكو كلر كي ماها وجهوكو كلر كي ماها أيكو سو نقول ينضمر كوكي حورا دودي حور العين تبا أورن دونتا warmarkaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiini waa isbedelay kalarkiini waa soo bedelay waa in sidee markaaba yakoona oranayaan wallahi annakana inta niga maqnayn wala in si bedelay ninkana suuqa adduunyada markaan tagna maxaan kala soo noqonaa qurux misafool xumo boos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaalana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ما سيحنيسد دراري هبين واتسكع عياري وطمان إن شاء الله هذا قولوا إن شاء الله هواك الجنة نبينا كشيكي عليه الصلاة والسلام نساء الجنة هواك الجنة مؤمن كاللوغو دياري ورسوله يري مد كمد إيكا haweenka jannada muuminka loogu diyaariyay mid kamid abuu nabigu yiri haddii adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jirkeyga ka soo baxaya buu nabigu yiri ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yiri gabadha muuminada ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyay haddii adduunyada u soo bixi lahayd oo dhoola cadayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcada iftiinkeyga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xuura alcaynta ka mida faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yaree madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xuura alcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeegu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaan nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaan nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayay ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaan nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn طوبى لمن كان لنا وكنا له كنوع هذا النن أنا نكون حاصل نقولنا اللي بنبي ليه ابن عباس الله رالك نقضي سجى به به مؤمنك بنك القيامة كتاب كيس قعنت مديك مركز لقصيو واتن آيات القرآن كإلهي كل شيء وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إهل كاكو كوانا دونك أتكو هايسة ماها إهل كان أدوية أتكو هايسة
ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay daacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad daacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaa buu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaanay ku sugayaan baa leeyihi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiiyow dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halkaa aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xagga iyo jannadu u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas maydaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi wuu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaa buu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sannadood arooska habeenka ugu horreysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqo saa ma u eegi kartaa war maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraa kaa geli maxaad ya yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda 20 daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkeega ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xuurlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku 70 sannadood tucaaniquhu wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa qooroqooraynta mucaanaqadoo keliya buuhi ibnu cabbaas haddana 70 sano kole haddana haysan buui sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii 4 shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlaaljannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan la eg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahla aljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahla aljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaadda markaad tukanayso ee mu'adinku uu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabta bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen
sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannada is horkeen quraan baa lagu leeyahay kaale akhri jannada is horkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannada is horkeen markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisa isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nabiga ay ku yidhaahdeen nabi allow magaalada maka annaku aan ka imanay ka soo baxnay maa u zamzam baan ku haysanno iib ma ahayn halkan biyuhu waa iib magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysano markaa ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyaayo reerkayga ayaa ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuhmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham cuhmaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisay u soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallee ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf uu yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka haddooto biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah markaa buu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahow raalli baan ka noqday raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaabuu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni iljanna indheergarata dadkaas ahaa soo maha ya mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 saneen soo socda isbeddelka geeska afrika ka faalloodaay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisay yaa allah caqliga aakhirada ku tusini waaya caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waaya caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag saxa maaha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno nin baa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysaa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn ma iyadoo ooyaysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa baad ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad is hordhigaysaa waa janno macsi markay naftiiyo shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiiyo shaydaanku ku yidhaahdiin waa inaad is hordhigtaa ilaahay cadhadiisa is hordhig ina batsha rabbika la shadiid ina rabbaka labil irsaad ilaahay ku xisaabtin cadhadiisa ka cabsiya naftaada markaas marka labadaasaa la doonaya ilaahay inaan ku caabudno طamacan khawfan wa طamaca cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid eed dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaaddo ilaahay raxmadiisa raje markaas oo ha quusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane
ودقسي بدنه وكريم ويان إلهي وكريم قال له شقينا سوى كريم كريم سيدي نكي حشك أسعدي مرأة اللي مركو إحرامك أحدي أيوم مغلي يقول لبيك اللهم لبيك مركا دوش يسال لقال لا لبيك ولا سعديك حشك آدو سعوت الله ما أقبل سفر كا آدو حمان قادتين إلهي كا أقبل ما يسكجوك هذا البعض شكل الدواء مدي سجد قداشي سجوجا هذا الكلام مقشيي كيبا كويري يا شيخ يا شيخ هذا كحجنا دبو لبيك اللهم لبيك مركا ترى هذا الجواب تمام مغلي مركا ما مقشها وان مغلي ما هذا المقشها هذا المغلي وعد تضبي الله بعتسنو أيان إلهي قريجي سو قصدي مرة اللي مركان حشك أنس إحرام قصور حدو إيه تلبية الصوب لا بابا لا لبيك ولا سعديك بالليلي حي ووحل دوش شيء اللي قال لي حي حشكاغا عمرضادا سعيغاغا عباددا ادو سعوتو الهي كا اقبل ما يبا ليليهي اسكا جوج با ليليهي حدان غوريغيسا كا جوجو او سعودكا ان حقيسا او دقاقي ان كا جوجو حقي كلو او تغا بلي شيخ بودي ادان تلا كا قادن بلي شيخ بوكاي ما يجرتا مال كله وعود اما هل يقبلوا اما يلي اقبلي أنا إلهي ما نسعد حقي سبولي مالك الله ما الصعود كقوسا ما إلهي الرحمة ديس الكريم الرحيم الرحمن وحليم وستار عبت نردم مقرنة يا مات دول قاد بدنه ورمع عدالة إلهي ما كنت جوغ الدوية دبالي دول ستر إيا دول قاد إلهي ما كنت جوغنا ستر أستر كيس إلهي بنا أستريا إلهي بين نوض القادنية لكن هذه عدالة اللي يجي لها أعماش الجركنا ما تكسوف ليس هي عصيان كان إلهي عاصنا إنه هي سدا معاصده والضوين كنا مقاحيه هنا قريه هنا إلهي اللوجو عاصنا يو دقيقة أدون كنا كنا ولا نحق ما يلنا المانت تضبي الله بعتصنا المغلا يا أبو يري ولا يقول جواب يا ولا إلهي هاي إلهي حشاك كأقبل ما يسكجو دما جوغا كجوغي ما يوان سعدا غلوريا ويميدي دواafkii buu bilaabay saayigii markuu dhameeyay ayaa dushiisa laga dhawaaqo la yiri labbayka wa sa'dayk waan ku aqbalay waa ka ajiibnay 720 hore xajidayna ilaahay waa ka aqbalay baa lagu kiiba la maqashiye marka hore maqlaayo marka buu sheekh waa lagu aqbalay wuxuu albaabkiisa ma ayna albaabka loo garaacayna ma jirto buu kay ما قوسنا أنا أقول إلهي بنا يسنا بركة إلهي الرحمة ديسا كقوسن ما إنه ذات كان كقوسن ما إنه بل دوان ترغيبنا إنا ورنا حريصنا إنا دعوة آيان وقويا إنا دعوة مركان وقويا إنا وندبرنا إنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معصرين